haddii aad maqli jirteen غayru mas'uuliin ayaa hogaamiya dal waa tani ka jirta dalka jamhuuriyadda jabuuti soo dhowaada muwaadinka reer jabuutiyow muwaadinada reer jabuutiyey dhalinyaroy mar kale dhegtinaysiya haddaad hore u maqli jirteen غayru mas'uuliin ayaa dal hogaamiya waa sida kuwan jabuuti ka taliya marka ay gorfeenayaan ee wada heshiinayaan ay xeer ama la bedelayo dastuurka haddii ay noqoto ama lagu beerinayo ama laga tirtirayo waxaa la go'aansada oo laga dhaqaaqaa majlis tiyoo la fadhiyo oo maandooriyo la qaadanayo sida jaadka iyo waxyaalo kale oon carabkaan soo marin karin waxaa maalmahan baa idhaahdee waxaa la iclaamiyey in dastuurka markii afraad la bedeli doono si uu markii lixaad ee u suuragal ugu noqoto Ismaaciil Cumar Geele inuu musharax noqdo uu mar kale haddana dalkan iyo dadkan la dhaadhaco waa dhafoor taabasho waa ulakac waa kibir waa bareed uu u bareeray inuu mar kale shacabka reer Jabuuti uu tuso in uu ka adkaaday inuu siduu doono yeeli karo inuu fartuu doono uu qoro ayna wax ka qaban kareen oday qaban karaa hooyo qaban kartaa wiil qaban karaa haba yaraatay inuusan jirin ayuu caddeeyey waa kaasee bal ila dhegaysta dastuurkii la ansixiyey 1992 oo hadda 40 sano ku dhow inuu gaaro waxa uu yahay mid 15 sano ka hor lagu sameeyay dib u habeyn balse waxa loo baahan yahay in la waafajiyo duruufaha cusub ee dalka iyo bulshada waqtigu ayaa waxa uu gaaray in la eego dib u habeyn iyo cusboonaysiin qaab dhismeedka dawliga iyo sidoo kale hay'adaha dastuuriga dalka in laga wada shaqeeyo